meherka fanaanada caanka ah ee Najma Nashaad iyo fanaanka caanka ah ee Bashiir Xanuuniye oo ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya. Intee ayuu ku dambeeyay sayigii hore ee Najma Nashaad oo ay bulshadu ku wareersan tahay? Maxaad kala socotaa in Bashiir Xanuuniye horey uu u soo furay xidigada caanka ah ee fanka laguna magacaabo Farxiyo Fiska? Weydiimaha iyo kuwa kale ayaan saaxiibayaal idiin sharaxi doonaa. muuqaalka like garee, subscribe garee channelkeena oo like garee follow soo dheh barteenan Facebook lana wadaag saaxiibadaada ku mahadsanid daawade. Makayo erayada xumaanta anaanta bayamaana agjoogaaga naftayda farxadna ugu filan adduunka. kulanti haboon saaxiibayaal ku soo dhawaada channelkeenan ducaysana media. muuqaalkeenan waxaan diiradda ku saari doonaa saaxiibayaal meherka ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya isla mar ahaantaana u dhaxeeya fanaaniinta saameynta ku dhaxlay fanka Soomaaliyeed ee lagu kala magacaabo Najma Nashaad, gabadha ugu quruxda badan fanka Soomaaliyeed, iyo sidoo kale gobolka caanka ah ee lagu magacaabo Bashiir Xanuuniye. haddaba saaxiibayaal maxaad ka taqaanaa Najma Nashaad? Najma Nashaad oo haatan bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay ku xantaan gabadha ugu quruxda badan fanka Soomaaliyeed isla mar ahaantaana ka soo jeeda deegaanada maamulka Somaliland ayaa waxaa saaxiibayaal la soo warinayaa in uu meherkoodu ka dhacay iyada iyo sidoo kale Bashiir Xanuuniye gudaha magaalada Hargeysa. waxaana sidoo kale meherkooda la sheegayaa in ay ka soo qayb galeen fanaaniin caana isla mar ahaantaana saameyn ku dhex leh bulshada dhexdeeda. hooyadan caruurta haysata isla mar ahaantaana fanka sida aadka ah looga yaqaan ayaa saaxiibayaal waxa ay ku soo shaacbaxday heesaha. arkimaysid ilmadan qubi jiriyo oo intaydiye arkimaysid qasanidii ambatiyo amikaydiye. geesta kale maxaad ka taqaanaa Bashiir Xanuuniye? Bashiir Xanuuniye oo ah sayigii hore ee xidigada caanka ah laguna magacaabo Farxiyo Fiska ayaa waxa uu saaxiibayaal hantay xidigadii ugu quruxda badneed fanka Soomaaliyeed laguna magacaabo Najma Nashaad. waxaana sidoo kale meherkooda ka soo qayb galay saaxiibayaal fanaaniin aad u fara badan isla mar ahaantaana Soomaaliya oo magac ku dhex leh bulshada dhexdeeda. waxaana sidoo kale goobjoog ahaa madasha siyaasiyiin caan ah iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhalinyarada ugu caansan baraha bulshada. waxaa saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada la isla dhaxmaraya sawirada hambalyeenta ah ee ku aadan Najma Nashaad iyo waliba sidoo kale xidigan caanka ah ee Bashiir Xanuuniye. ila milicso mid ka mid ah heesaha Bashiir Xanuuniye. saameyntii ugu badneed ayuu saaxiibayaal dhalinayaa meherkan, walow sidoo kale aan la ogeyn halkii uu ku dambeeyay sayigii hore ee Najma Nashaad. muuqaalka like garee oo la wadaag saaxiibadaada kuna mahadsanid daawashadaada oo waan kaga mahad celinaynaa. nagu soo biir oo rukumo subscribe na saar channelkeenan ducaysana media. haddii aad naga daawanayso barteenan Facebook like garee muuqaalkan oo follow soo dheh page-keenan lana wadaag saaxiibadaada ku mahadsanid daawade.